ومحي حزب السياسات حزب السياسات كديمقراطية أهي وهيات أي كوض مقدان ضمان قيبها كلا دوان أي بلشدة كاسوله أركتي إيا قرشيال سياسات أو كساليسان إسل حساب تنضبه حزب وحو ليهاي مشرحين كقيب جليسة دورشوين كجود كواسو مركي دورشوين ككوسو جولستان كقيب نقطة لاسمها حكومة دا وحا كلا أو حزب نقون كرا مد معارض هذا هو سؤالي يا قادن كرا مقع حزب السياسات حزب السياسات waxaa loogu yeeri karaa xisbiga diiwaangelin ku meel gaar ah ama mid rasmi ah ka haysta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka diiwaangelinta waxaa cadeyn u ah shahaado saxiixan oo shaabadaysan oo ka soo baxday xafiiska diiwaangeliyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka diiwaangelinta xisbiyada waxa ay maraysaa laba heer oo kala ah heerka koowaad oo ah diiwaangelinta ku meel gaarka ah iyo heerka labaad oo ah diiwaangelinta rasmiga ah xisbiyada waxa diiwaangelinta ku meel gaarka ah loo siiyaa si ay ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta rasmiga ah xisbina doorashada kuma gali karo diiwaangelinta ku meel gaarka ah yaan ka mid noqon karin xisbi siyaasadeed xubnaha ka reeban in ay ka mid noqdaan xisbiyada siyaasadda waxa ka mid ah ciidamada qalabka sida garsoorayaasha maxkamadaha dalka diblomaasiyiinta ama howlwadeennada safaaradaha iyo dhammaan shaqaalaha dawladda waa maxay muhiimadda xisbiyada siyaasadda muhiimadda xisbiyada siyaasaddu waa wacyigelinta dadweynaha iyo la xisaabtanka dawladda soo gudbinta musharaxiinta iyo u fududeynta codbixiyaasha doorashada xisbiga uu doonayo sidoo kale xisbiyadu waxay codka dadweynaha gaarsiiyaan dawladda tirada xisbiyada samaysmi karaa ma xadidan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ma xadidi karo tirada xisbiyada siyaasadda waayo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu muwaadin kasta xaq u siinayaa in uu samaysto ama ka mid noqdo xisbi siyaasadeed hase ahaatee taas macnaheedu ma aha in qof kasta uu xisbi siyaasadeed iska samaysan karo shuruudaha iyo xeerka diiwaangelinta oo la adkeeyay awgeed